madaxweynihii hore Soomaaliland mudane Daahir Riyaale Kaahin ee ka dhalatay xukuumaddii udub oo sanadihii u dambeysay deganaanshihiisu ahaa magaalada Paris ee caasimada dalka Faransiiska ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Hargeysa ana soo dhaweyn maqaamkeedu oo aad u sarreeyay loogu sameeyay madaarka magaalada Hargeysa halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen xubno kamid ah golaha wasiirada xildhibaanada labada aqal ee guurtida iyo wakiilada gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga xaakimka talada haya kulmiye maxamed Kaahin Axmed iyo gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliland Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle mudane Daahir Riyaale Kaahin madaxweynihii hore Soomaaliland oo ugu horeyn halkaas ka hadlay ayaa ka warbixiyay ujeedka socdaalkiisani maanta waxaan u yimid inaan ka qayb galo haddii Ilaahay yiraahdo xafladda labada madaxweynaha aniga bedelay iyo madaxweynihii ka dambeeyay ee xilka guula kala wareegayaan taasoo lagu marti qaaday dhinaca kale mar ay warbaahintu wax ka weydiisay madaxweynihii hore Soomaaliland mudane Daahir Riyaale Kaahin qaabka uu arkay sida ay doorashadu Soomaaliland uga qabsoontay waxa uu ku jawaabay mar ay dhacday ma jirin mar ay doorashada jilicsanay dhacday ma jiro afar doorashaan qabtay midna ma jilicsanayn doorashana ninkii bilaabay aanu ahaa imaatikaygu wuxuu ka mid yahay dimuqraadiyadda maxamed Kaahin iyo halgankii bay sheeganayaan anna dimuqraadiyadda sheeganay dhankooda waxa iyaguna halkaas ka hadlay oo hadal soo dhaweyn ka soo jeediyay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland ee xukuumadda xilka ka sii degaysa mudane Maxamuud Xaashi Cabdi iyo gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle qolka nasashada gegida dayuuradaha caalamiga ee Cigaal International Airport aanu ku soo dhaweyno madaxweynihii hore Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Daahir Riyaale Kaahin iyo marwadiisa wada barxad madaxweyne Daahir Riyaale waxaanu ku soo marti qaadnay xafladda caleema saarka iyo xil wareejinta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha la doortay iyo ku-xigeenkiisa inuu nagala soo qayb galo waayo waa madaxweynihii ku suntanaa geedi socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka xorta ah waxa dhamaanteen sharaf weyn inoo ah taariikh inoo ah Soomaaliland oo dhan in muddo 7 sano gudahooda ay 3 madaxweyne xilka la kala wareegaan waxaynu Afrika dheerayn waxaynu ku faanaynay waxa dunidu inoogu bixisay mucjisadii bariga Afrika ka soo baxaysay socdaalka madaxweynihii hore ee Soomaaliland mudane Daahir Riyaale Kaahin ayaa ku soo beegmaya xilli maalmo kooban ay ka harsan tahay xil u kala wareejinta madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo madaxweynaha la doortay mudane Muuse Biixi Cabdi Najiib Cabdi Wali Cabdi Xiis telefishinka caalamiga Universal magaalada Hargeysa.